jawaabto waxay ahayd madal baqran oo ay ka soo qayb galeen siyaasiyiin mas'uuliyiin ka tirsan labada gole ee dowlad goboleedka Jubbaland waxgaradka ismada dhaqanka ururada dhalinyarada haweenka waxaana madashan quruxda badan ay ahayd mid lagu caleemisaarayay nabadoon Xuseen Macalin Diyaad oo ka mid noqon doona nabadoonada cusub ee dowlad goboleedka Jubbaland ahna nabadoonka guud ee beelweynta Murile ee degta guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan deegaanada Jubbaland waxaana madal dhaqameedka nabadoonka cusub lagu caleemisaarayay sidoo kale lagu soo bandhigay waxyaabaha hidaha iyo dhaqanka Soomaalida waa sida cuntada iyo sidoo kale agabyada kala duwan ee hidaraaca ah munaasabada oo jawi degan ku bilaabatay ayaa ugu horeyn waxa ka hadlay dhalinyarada iyo mas'uuliyiinta beesha Murile oo soo qaban qaabiyay xalfadan balaaran ee lagu caleemisaarayay nabadoon Xuseen Macalin Diyaad waxaana ka soo qaybgalayaasha uga mahadceliyeen sida balaaran ay xalfadan u bileen waxaan halkaan xambaliyo iyo bogaadin uga jeedinayaa nabadoonka guud ee beesha Murile ee qaybta Jubbaland hadduu Allah awood la idmo nabadoon Xuseen Diyaad nabadoonka beesha caleemasaarkiisu maanta yahay ogeysiis baan bixinaynaa marka sharafka ka soo qayb gashay wax badan iyo arrimo badan iyo wax badan oo gaar ah aad iyo aad baan u raacsanyihiin mahadcelin kadib nabadoonkiina naaburaajin iyo dhiirigelin iyo ahmiyad dheeraad ah inuu yeesho golaha deegaanka ee Jubbaland waxay ku caan tahay odayaal isku duuban iyo midnimo iyo dawlad wanaag waxaan ka rajaynaynaa inaad la shaqeyn doontaan dhammaantiin iyo marti sharafka halkaan fadhiya madda kale labaad nabadoonka safar dheer baa sugaayay waxaan leeyahay safar dheer baan ku sugaayay saxadaada qaado sahal ma ahan wadada sheed waxaan leenahay reer Jubbaland waa idin kaga mahadcelinaynaa sidaad noo ogolaateen inaan idin wacno oo gogosha nooga soo qayb gashaan waa idin kaga mahadcelinaynaa mahadcelin gadaasheed waxaan rabnaa ugaaska maanta aan caleema saarnay adinkuna nala caleema saarteen Xuseen Diyaad aadan waxaan rabnaa inaad nala xambaartiin garabka nala qabatiin oo ka mid noqdo odayaasha Jubbaland waxaan leenahay waa mahadsantiin soo dhaweyshaad soo dhaweyseen iyo sida aad noogu heelantiin waa idinkaga mahadcelinaynaa marka dhammaan ummadda Soomaaliyeed ugaasada leh xildhibaanada mas'uuliyiinta ee naga soo ajiibtay gogoshan sharafta badan ee nagu dhignay waxaan idinkaga mahadcelinayaa ajiibitaankiina ciziga iyo sharafka aad nagu soo ajiibtaan jazaakumullahu khayr jazaa baan idin leenahay mar rabana warka ku sii fogaado aad iyo aad baad mahadsantiin hal qodob oo kale oo rabaa in raacsadaan nabadoonka balaadunka ajal bayliin dib u soo arki doon laba oge anigu waxaan ku dhashay meel yiraahdo gado waxa la yiraahdo dhacday laba balaayo nabadoonka inuu maqlaan malaynaya baada kale yiraahdo balaayo rag yeeshay balaayo rag weyse bal kale yiraahdo balaayo rag weyse tan rag yeesha fiican nin baa ilaahay laba gabdhood dad ka siiyay reegadoona ninka garanaya ninka gabdho kale dhala gablan way dhijireen marka nin kale oo jufo kale oo qaraabo yihiin ba gabadhii ka guursaday maalmo ka bacdi ba gabadhii habeenkii inta isku dhaceen buu gowracay madaxa buu agdhig ayadoo afar wiil oo yar haysato uu gowracay marka qoladii kale oo qaraabada weeyiin ba hub soo qaadatay odaygu uu fikiray cusri laba gabdhood ba dad ka dhashay mid waa la gowracay afarta cunuga ayada dhashay wad weyn doonto weeraan aabeeda dekan loo dili doono gabadhii uu gacanta ka qabtay ninkii oo gabadhii miidkeeda dul taagan ma tulkiisii oo xanaaqsan oo meel fadhiyo uu wuxuu yirtalow maanta kale taladii uu san bariyahay ugu darin waxaan u mahadcelinayaa qolada meeshaan gogosha dhigatay oo ah beesha aan ka dhashay ee Murile odayaashooda dhalinyaradooda haweenkooda culmaadiinkooda iyo aqoon-yahanadooda kulli waa salaamaya hambalyaana leeyahay maadaama maanta caleema saaranayno ugaas cusub
ama suldaan hadba siday tahay nabadoonka cusub waan salaamayaa xuseen diyaad waxaan leeyahay assalaamu calaykum salaanta kadib aniga waxa la yaroo tixaa rabaa inaan sheego inkastoo bulshadii indhaha ay ugu badan yihiin wixii aan gafo hala igu dulqaato salaan diiran baa sidaay saaka iga hantiya salaadiinta reerka iyagoo saaka waa guddoon haddaad soo sara kacdeen saaka waa guddoon haddaad suldaan yeelateen saaka waa guddoon suldaanka la doortay ayaa maanta salaamayaa xilka aa qaaday rabbigay ha kugu xafido intaan kugu xeeran xanaanay kaa dhowrayaan xisaabta naga baaday inaad xeerisaan rabnaa gartii kugu ragaata inaad xallisaan rabnaa suldaan ha xanaaqin hadalkaada xanafka dhowr magaca ciddeennu meel dheer ayuu ka yimid afkaygu kama maaga ammaantooda inuu tirshaa ehelu sharaf weeye afarta reer adeeraday asal inaan nahayna abtirkeennana waa wacnaa abkii muraliya waxaan nahay aqoon-yahanadii waa mahadsantihiin si ambaqaadka madashan lagu caleemasaaraya nabadoon xuseen macalin diyaad oo jawi qurux badan ku bilaabatay ayaa waxaa sidoo kale marba marka xiga kusoo biirayay waxgaradka dhaqanka iyo siyaasiyiinta guud ahaan beelaha Soomaaliyeed gaar ahaan beelaha deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland iyadoo ay hareer socotay hambalyo uga imaanaysa nabadoonka mas'uuliyiin xalfadan ka maqan oo ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland qaar kamid ah mas'uuliyiintii ka tirsanaa dowlad goboleedka Jubbaland oo isugu jiray xildhibaano iyo wasiiro hore iyo waxgaradkii kulanka ka hadlay ayaa waxa ay sheegeen in ay muhiimad gaar ah u leedahay in bilweynta Murule ee doorato nabadoon ay ku kalsoon yihiin kaasoo ay sheegeen inuu ambaqaadi doono howlaha dardargelinta u baahan ee beesha iyo sidoo kale dowlad goboleedka Jubbaland waxaan u mahadcelinaynaa bahda iyo beesha Murule sida ay u soo abaabuleen xafladan qiimaha iyo qaayaha badan waan ugu mahadcelinaynaa waxaan soo dhaweynaynaa nabadoonka sida adinka aad noogu dhiibteen aan u qaadaynaa waa qaadnay waxaan leenahay nabadoon soo dhawow waxaan rabaa inaan kelmado kale aan ku darsadaan rabaa insha allahu tacaala nabadoonka horta intaan la soo xulin ka hor ilaahay amarkiisu ku yimid ilaahay baa u gartay inuu beesha hogaamiyo markaa kadib ilaahay wuxuu fahamsiiyey beesha nin ka mid unbuu fahamsiin doonaa waxaan ognahay in la leeyahay berrito waxaa keenay agaasimaha keenay shiiqii reerkaa keenay gabadhii aftahankeedaa keentay ma jirto ilaahay baa u gartay inuu reerka hogaamiyo ninna ilaahay baa fahamsiiyey marka sidaas ay beesha ku wada qaadatay ninkaas sidii ay ku qaateen aan ku qaadanaynaa waan soo dhaweynaynaa waa idinla qaadaynaa waana la shaqaynaynaa waxaa laga rabaa nabadoonka beesha waxay u idmatay in waxa xaqa ku jirana uu ka bixiyo waxa ka maqanna uu u keeno intaas isaga ay la jirtaa nabadoon soo dhawow beesha Murule kaliya uma tihiin nabadoon waad maqlaysay raggii anaga naga horreeyay oo dhan dhagaha waa qabtay waad maqlaysay kulli waxay ka wada dhawaajiyeen inaad tahay nabadoon Jubbaland inaad tahay nabadoon Soomaaliyeed inaad tahay mid heer qaran ah inaad tahay intoo dhan meesha laga wada dhawaajiyay intaas sabta inaad fahamto waa laga rabaa nabadoon beesha waxay ka rabtaa cadaalad ummadda ay la dhaqan tahayna waxay ka rabaan cadaalad intaas waa ka rajaynaynaa waana tahay ninkeeda waa tahay ciddii xafladan quruxda badan ee meeshaan hoolkan iyo dadkan soo agaasintay oo isu keentay ayaan u mahadcelinayaa marka labaad waxaan u mahadcelinayaa marti sharaftii halkan laga casuumay ajiibadii ay soo ajiibeen ayadana waa ka mahadcelinayaa waxaa waaye meeshaan dad badan baa iskugu yimid
hadda wixii ka hadlay waxay ahaayeen dad xildhibaano ah oo madax ah Jubbaland ah ka hadashay warkoodii aad u wanaagsanaay horta kuwii qaata Allah naga dhiga marka kale waxaa fadhiya odayaal qabaa'ilada Soomaaliya ee Jubbaland degan kamid ah odayaashooda dhaqanka ah aniga hadda meesha aan taaganahay waxaan ku taaganahay magaca beesha Coormala Xuseen Diyaad iyo dadka askar dhashay waa dadka deegaanka iyo daaqa iyo beeraha aan wada wadaagno Soomaalida dalka waa wada degan tahay laakiin dalka magacyuu kala leeyahay waa rijin Jubbaland markii la yiraahdo dhulka ay ka degan yihiin waxa waaye dhulka la yiraahdo Jawaarey Saakow Lebibuul Boorow dhulka geelooda oo daaqa ayaan aqaanaa oo beerahooda ku yeelaan oo degan yihiin aan aqaanaa nabadoon Xuseen oo xilka lagu doortay ay tolkaada ku doorteen oo ugaasnimada ku doorteen beesha Muroolo waa soo dhaweyneena anigoo ku hadlaaya magaca beesha Coormala waa ku garab istaageena nabadoon Soomaaliyeed baa tahay jifin nabadoon uma ihid Soomaalida Jubbaland degan oo dhanaad nabadoon u tahay Ilaahay ha ka dhiga nabadoon nabadeed annagana waxaan ku kula shaqaynaynaa sidaas dadka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay nabadoonka ama ugaaska maanta nagu soo kordhay ha la garab istaaga nabadoonnadaas ka mid yahay odayaasha dhaqankaas ka mid yahay in la garab istaaga oo Soomaaliya maanta nabadda laga wada shaqeeyo waa loo baahan yahay midda kale waa ku soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol aad baan ku soo dhaweynaynaa waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahadcelinayaa odayaasha dhaqanka ee meesha fadhiya gabdhaha waxgaradka culamaa u diinka dhammaantood waa u mahadcelinayaa adigana waa ku mahadcelinayaa waana ku soo dhaweynaa beesha keentay meeshaan Soomaalideena annaka reer koonfuraanahay dhaqanaan leenahay qofku waa la soo diraa waa laga haraa nabadoonka yaan laga harin ha la daba istaaga ha la garab istaaga ha la qarameeyo yaan laga harin nabadana ha lagu kaalmeeyo waana mahadsantihiin waxaa salaan mudan kale oo maaragtaaye xafladan wanaagsan oo isku imaadka ah qabiilka sameeyeen waa mahadsan yahay intaa kadib waxaa kolleyba hadda gooshaan xafladan loo dhigay ugaaska nabadoonka guud beesha Muroole Xuseen Macalin Diyaad haddaan odayaashii dhaqanka nahay aan nahay maaragtay Jubbaland waan qaadnay xilba waa nin garabka annaga ah dushaan saarannay waxaan ka doonaynaa sida odayaasha dhaqanka ay yihiin inuu ahaado oo dul qaato dadka tolka nin xun baa iskaga jira nin wanaagsan baa ku jira cid walbaba inuu u dul qaataan ka codsanaynaa annagana hadduu alla yidhaahdo waan la shaqaynaynaa hadduu alla idmo dhammaan odayaasha dhaqanka ah meeshay joogaanba inta joogta inta maqanba hadduu ku soo biiray oo Jubbaland odayaashu ku soo biiray waan la shaqaynaynaa beesha Muroole oo odaygaas dooratay oo xafladan weyna ka badan oo quruxda badan u dhigtay waxaan ka codsanaynaa inayna garab furin ummadda maanta waxay sameeyaan ninka intii la xambaaro ayaa markii usbuuc ama dhowr sano ama sano la wado ayaa laga hor imaadaa ninkaas annaga waan qaadnay sidaad noogu keenteen baan u qaadnay mana daan doono doliya waxaan idinka codsanaynaa ninkaa garab ha la siiyo marka warkiisa ha la qaato asna ilaahay waxaa looga baryaynaa ninkii ushiisa ilaahay daawo ka dhigay inuu alla ka dhigo ninkii wanaagsanaa oo tolka u fiicnaa inuu alla ka dhigo annagana ilaahay u baryaynaa tolka dhan wada anfaco islaamka oo dhan anfaco uma aha qabiilka keli uma aha Soomaali uu yahay hadii nabadoon aad maqashaan waa Soomaali guud weyn Soomaalidu uu yahay nabadoon sidaas aan leenahay
waana qaaday waan xambaaranay dushaan saaranay ku soo dhawow hadduu ilaahay yiraahdo tolkaadii iyo deegaankaadii iyo dadkaadii ku soo dhawow waxaan mahad ballaaran runtii uga celinayaa ajiibitaanka ay ka ajiibeen beesha Murale oo caleema saaraysa nabadoonka guud ee Jubbaland Xuseen Macalin Diyaad oo aan leenahay runtii beesha kaliya looma caleema saaraya waxa loo caleema saaraya reer Jubbaland mas'uuliyadda markii lagu saaro waxaad mas'uul ka tahay qof kasta oo Soomaaliya oo meesha jooga bad mas'uuliyadda beesha ku saaratay karaamada qabiilka aad huwan tahay bad waxaad ku wada qaaday Soomaalida kale ee kugula dhaqan deegaankaas bad iyagana karaamadoodii huwan tahay marka mas'uuliyadda ku saarani waxay koobaysaa reer Jubbaland ee kuma ekaan doonto mid beeshii iyo jifadii kaliya ku dooratay ku ekaatay inayna noqonin baan rajaynaynaa Soomaalidu way mahmahdaa waxa la yiraahdaa been way sheegtaa kuma samahmaado waxa la yiraahdaa ninka duqa duq waa dameer kama maaranno waa la dhaansan waa la raran wax kasta lagu qabsan haddana haraati iyo ridaami iyo dhibaato laga badaayo waxa la rabaa dulqaad baa laga rabaa macnaha waxa laga rabaa dameerku dulqaad buu leeyahay muxuu dulqaad leeyahay inta dhibaato ee loo geysanayo buu dulqaad u leeyahay maxaa duqa loogu mithlay duqa waxa ku soo dhacaya ardaalkii alkoolisti mid waalan mid miyir qaba mid curyaana mid caga qaba cid walba duq baad u tahay mas'uuliyad ballaaran oo runtii mas'uuliyad wax lagu cararo ma waa wax laga cararo ilaahay agtiisa haddaadan siday ahayd u gudanin wax dhibaato badan weeye runtii waxaan rajaynaynaa nabadoon Xuseen Macalin Diyaad inaad ku soo kordhiso Jubbaland wax wanaagsan midnimay matalaysaa tani waxaad aragtaa dadka reer Jubbaland dhammaan way ka soo wada qayb galeen caleema saarkaaga insha Allah nabadoonku waan soo dhaweynaynaa waa nabadoonkeenii beesha Murule kaliya ma ahan reer Jubbaland ayaa loo caleema saarayaa ama nabadoon uu yahay insha Allah nabadoon waxaan ku leenahay shaqo adag ayaa lagu dhiibay ama lagu eedmaday ilaahay ha ku fududeeyo gaar ahaan reer Murale guud ahaan reer Jubbaland oo anigu ku jiro aad nabadoon u tahay insha Allah waxa warkaygii oo dhan qaatay qaybihii ka mid ka ahaa xildhibaankii iga horeeyay inta uu maray ayaan kugu boorinayaa intaas inaad martid ilaahay kuu fududeeyo dadkan reer Jubbaland waxaan leeyahay halala shaqeeyo nabadoonka shaqada adagoo u taalo insha Allah nabadoon soo dhawow waxaan u hambaliyaynayaa nabadoon Xuseen Macalin Diyaad waxaan leeyahay nabadoon soo dhawow anigoo ku hadlayo afka baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland soo dhawow xilka aad qaadan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha kugu asturo xil waa wax culus waa wax fudud oo lagu soo ordama waa wax aad iyo aad u dhib badan wixii dardaaran iyo waana ah waxa inoo sheegay xildhibaankii iga horeeyay ahna wasiirkii hore wixii dardaaran iyo wixii lagu dhihi lahaay oo dhan asaga yaa dhamaystay waxaan ku leeyahay caqabado fara badan baad la kulmi dhibaatooyin badan baad arkaysaa oo lagu caay oo lagu aflagaadeen waxaa loo baahan yahay mahmaadii xildhibaanku uu sheegay in aad ahaato mahmaadii xildhibaanku uu sheegayay oo lagu rarto wax walba lagu sameeyo kelito waxaan ku darayaa nabadoonka waa in la maalgeliyo la garab istaago la weyneeyo la sharfo la ixtiraamo waxa uu baahan yahay la siiyo loogaada laga warqabo haddii la sii daayo nabadoonka keligii waxaa laga yaabaa in wax badan halaabaan nabadoone soo dhawow waana ku hambaliyaynayaa jufada beesha bahweynta Murale meeshan waxaan u malaynayaa nabadoonku ku caleema saarayso ayada kali nabadoon matiida Jubbaland oo dhan baa nabadoon u tahay waxyaalaha suluxa ah waxyaalaha suluxa ah
iyo nabadoonnimada iyo wanaagga ee danta Jubbaland waa inaad ka shaqaysaa oo istaagtaa dhaxda u xirataa midda beeshana markaas kadib gadaal la mariyo sida annaga waan ku garab taaganahay nabadoon soo dhawow xilka aad qaadayn Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha kugu asturo waa mahadsantiin wabillahi tawfiiq sacabka mashxaradda iyo dhawaqa jawiga degan ee xalfadan waxa ay muujinaysay habriyaaqeedka maamuuska loo sameeyay xalfadan ay soo qaban qaabiyeen dhalinyarada iyo waxgaradka beelweynta Murule ee degta guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland waxa ugu dambeyntii ka hadlay nabadoon Xuseen Macalin Diyaad wuxuuna uga mahad celiyay nabadoonada garab taagnaa ee caleemasaarkiisa ka soo qayb galay isagoona sheegay inuu u istaagi doono isku xirka bulshada dowlad goboleedka Jubbaland ku nool wuxuuna ka codsaday bulshada in ay la shaqeeyaan galayaasha sarafta leh odayaasha dhaqanka culumadiinka siyaasiyiinta waxgaradka haweenka dhammaan ururada bulshada dhammaan inta halkaan iskugu timid dhammaanteen waxaan idinku salaamayaa qof kasta mansabka uu halkaan ku fadhiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu intaa kadib walaalayaal marka hore dhammaanteen waad salaaman tihiin sida sharafta leh oo aad u soo ajiibteen xafladan qiimaha badan ee halkaan maanta iskugu nimid sida sharafta leh aad u soo ajiibteen aad baan idinkaga mahad celinayaa aniga laftayda waxaa weeye Xuseen Diyaad baa la yidhaahdaa Xuseen Macalin Diyaad haddee raggii Jubbaland rag waxaan ahay deegaanka ah reer Jubbaland ah marka run ahaantii waxaad ii muujiseen wanaag iyo sharaf ayaad ii muujiseen taasna waan idinkaga mahad celinayaa boqolkiiba boqol anigana garabkiina ayaan taaganahay Jubbaland garabkeedaan taaganahay waad ugu tashanaysaan insha Allah tacaala inaan idin la shaqeeyo danaha Jubbaland aan ka shaqeeyo ayaan diyaar u ahay ayadana midda kale marka walaalayaal haddee kullaba haddii ay tolka ay doorteen calaamad saareen sida hore odayaasha ay u sheegeen beesha kaligeed uma ihi waxaan u ahay Soomaaliya oo dhan baan oday u ahay haddii anigana Allah iga dhigo kii xilkiisa si fiican u guto waajibkiisa guto anigana Allah iga dhigo Allah iga dhigo dhammaan reer Jubbaland waa u duceynayaa Ilaahay madda gacmaha isqabsato nabad ku naaloota hore u socota gudaha daawadayaal intaas ay ku soo fmeerina xafladda quruxda badneed ee lagu caleemasaarayay nabadoon Xuseen Macalin Diyaad oo ah nabadoonka guud ee beesha Murule ee deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland waxaana munaasabadan soo qaban qaabiyay dhalinyarada iyo waxgaradka iyo soo kale maareeyaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo Cabdullaahi Jagadoon iyadoo xalfadan ay ahayd mid aad u qurux badan oo dadkii ka soo qayb galay hab maamuuskeeda ay la dhaceen tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay amaana Allah